wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland shaqaalaha guud ee xarunta beeraha ee caasimadda Hargeysa iyo waliba guud ahaan gobolkani Gabiley iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo ciidanka qaranka ee mashruuca Togwa Jaale ayaa si wada jir ah iskaga kaashaday gogoldhiga ama ururinta agabka kala duwan ee midhaha ka soo go'ay beeraha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo guud ahaanba maanta si rasmi ah looga gurayay midhihii kala duwan ee ka soo go'ay dalagyada kala duwan ee ciidanka qaranka ay wasaaradda beeruhu u beertay shirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geedole oo u waramay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa labada dalag mid waxa weeye waa faashoolihi cadaayo isagu ma sii socdo islaashiis waa markii la hado ma xididkan goynayna ka kale waa digirta casayr oo iyada geedka intay gegtay oo la quraya taasiyada waxay socon doontaa bilay socon doontaa 3 sano oo beernay laakiin booliisku uma beernay intii hore sanadkan 3 ciidan qaran baa beernay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland isku duwaa wasaaradda beeraha gobolka Gabiley taliyaha ciidamada hubka dhigiska gobolka Gabiley saddex digle Cabdilaahi iyo mas'uuliyiin kale oo dhamaantood ba halkaasi ka hadashay oo isku jira aqoonyahanada jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa dhamaantood ba soo dhaweeyay shaqaalaha waxa weeye shaqaalihi xirfadda u lahaa beeraha waxba loo tilmaami maayo